السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبيال سو dhawaada meel kasta ku sugantiin halkani waa muqbaahiyaha warbaahinta IFT. Haddii aad ku cusubtay muuqaalka channelka subscribe saar, page-kana soo follow garee si aad ula socoto muuqaalada u dambeeyay had baan soo baahinay. Haddaad si hore oo si joogtay muuqaalka si share garee muuqaalku waa muuqaalkaagii inta kadib soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan doonayaa muuqaalkan idin la wadaagayo ama qodobkan idin la wadaagayo aan soo wado ama mawduuca aan ka hadlayo waxaan doonayaa inaad saddex qolo gaarsiisaan xagga maaha waa saddex qolo oo ku sugan gudaha Soomaaliland inaad gaarsiisaan baan doonayaa haddaad saddexda qolo aad ka mid tahay muuqaalkan waa muuqaalkaaga halka uu ka mid ugu reeb haddii saddexda qolo cid ka mid aad garanaysana adigu muuqaalka ku share garay oo gaarsii waa dadka fikradda aaminsan dadkaasi waa dadka inta badan ka soo aaminsan ama aadka ugu doodaya arrimaha nabadeynta colaadaha bariga ka soo cusboonaaday waa dadka ugu horeeyo ninka loo yaqaan boqor Cismaan oo Maxamuud Buurmadow muuqaalka ku share garay sidoo kale waa groupka ama garabka uu hogaaminayo Xisbi Cali Xaaji Xasan ee ka soo jeeda beesha habar jeclo ee ka tirsan xisbiga wadani iyagana muuqaalkan gaarsii dadka kale walaalaheena ama beelaha noqdaan ama shakhsiyaad ha noqdaan ee aaminsan fikirka ah in ciidanka madani aan la samaysan in habar jeclo ama deegaanadeeda aan ciidan madani aan ay samaysan qoladana gaarsiin muuqaalkan oo muuqaalkoodi si ay jawaab uga bixiyaan muuqaalkan soo wado way isfahanama filayaan saddexda qolo ayay muuqaalkan gaar u yahay maanta oo aynu gaarsiinayna su'aalana aynu weydiinayna jawaabta inoo hayaan oo bilaa tuxaana waxaan doonaynaa inay halka hoose commentiga noogu reebaan saddexda group waxay aaminsan yihiin in ciidamada madaniga deegaanada laga qaado in ciidamada madaniga aan la samaysan in qoryaha la dhigo hubka la soo saaray in guryahooda lagu xareeyo ay aaminsan yihiin saddexda group ninka Xirsi Cali Xaaji Xasan ilmaadka nahay iyo odayga adeerka noo ah boqor Cismaan Maxamuud Buurmadow iyo dadka kale ee ama qabaayilka kale ka soo jeedaan ama sidoo kale qabiilka beesha habar jeclo ha ahaadaan fikirka la aaminsan ayuu muuqaalka muqsaya waayahay waxaan filayaa inaan isla fahanay mawduuca maanta aynu gudbinayno muuqaalkan ku soo wada wuxuu tilmaamayaa waa 45 magaalo oo u qorshaysan qolada ugu weyn tahay inay galaan oo gubaan oo ay qabsadaan hadda muuqaalka si wacan weys waa 45 magaalo ayaa u qorshaysan in kooxaha ugu weyn tahay ay qabsadaan oo gacanta ay ku dhigaan oo ay dab sudaan oo ay burburiyaan sidii ay u burburiyeen qorshayno kale 45 magaalo iyaga afkooda lagu sheegay tilmaamay 45 magaalo iyaga tirnaya waa muuqaalkan la wadaagay iibga doonay dhamaantii marka hore inay wada daawataan wixii aan marag lahayna reeban 45 magaalo qoshoodu waxa weeye inay qabsadaan kadib cagta ay mariyaan oo ay baabiyaan iyagoo leh waa dhul iyo deegaan iyo ka maqan dadka deegaanada ku abtirsada 45 magaalo waa 45 magaalo hadda nabada waxa ugu shishaysa oo ugu kooraysa tahay burburiyeen la midka ah waxaana ugu sokeeya deegaanka beer iyo gaatama oo buraaw jira 30 kilomitir waayahay hada badanaha ma buuxshay marka hore muuqaalka ee isku diinayaan waliya daawad waxaan se ku tirin doonaa tirada 27 magaalo oo camiran oo la buuxo oo ay degan yihiin beesha Isaaq oo ay leeyihiin beesha dhulbaanti warkaasi waa itu soo itaabsi ma aha wax aan iska maaragtay kaftan ma aha marka waxaad soo qaadataa warqad iyo qalin waxaad diiwaan gashataa dhulkan aan ku tixi doono ee ay hadda degan tahay SNM ama Isaaq saad hadda u taqaan milkigeedana ay tahay dhul reer SSC gar adag ceel afweyn fadhigaab beer weyso oog darar weyne dogoble xamilka sincaro siigo dheer farjano caynaba war idaad wadaamago balidhiig qorilugud hayabari qoryaale beer coodanle habari heshay qabri hulul gebi caso balli calanle balli haleelo muraayadda iyo labida gaatama dhulkaas aan ku sheegay waa dhul dadku wada yaqaano waayeelka iyo duqaytada qayb ka midihina ay si fiican u garanayaan iyagoo xoolaha daaqsada guryahoodu ka dhisan yihiin ceel iyo carshinba iyagu jooga oo ay shalay tahay
way saaxiib yar muuqaalka waa wada taawanay dhammaantiin inay fahanteen baan rajaynaya waa 45 magaalo oo qaarkood laga yaabo ku inay taawanaya inay ku sugan tihiin haddii magaalooyinka ka soo jeedaa waad ku sugan tahay halka si commentiga ay nagu reebi doontaa waayahay 45 magaalo ayaa qorshaysan in kooxaha wada gacanta ay ku dhigaan oo ay qabsadaan maalmaha bilaha iyo sanadaha ay soo socda iyagoo daliishanaya in dhulkaas uu yahay dhul dagaameed ka maqan dadka ay matalaan haddaba mawduucayga haddaan ugu dadco waxaan doonayaa inaan weydiiyo su-aasha ah war 45 magaalo laba ka mid ah waa la gubay oo waa la baadiyey 43 magaalo ayaa haray 43 magaalo ee haray waa magaalooyinka ugu ay ka soo jeedaan labada dhinac sheegay ugu tuka weyle ee tolka nahay haddaba su-aasha aan weydiinayo bilaa tuxaanta bilaa ceebta waxay tahay maxaa jawaaba haysaa haddaynu ciidamada madaniga soo saarno haddaynu ciidamada madaniga hubka ka dhigno haddaynu ciidamada madaniga nabad ugu dhawaaqno haddaynu ciidamada madaniga soo kaxayno haddaynu ciidamada madaniga baabiino haddaynu gamcaha taagno haddaynu nabad ku dhawaaqno haddaynu qoryaha iyo hubka dhigno oo halkii laga keenay ku xarayno barkeena dawladda ku wareejino 45 magaalo ee kooxaas ku hadmeeyaan maxaa jawaabo haysaa miyaad haysaa nabad maya وهذا boqor Ismaan buur madow hadlayeen habeen labaadkii bool laba lagu weey maxaa haysaa ma waxa leeyahay hal lagu ee dhamaanteen naga soo saara oo xuduudkeena ha noqdo burco oo aynu halkaas ku nimaadno wixii ka shisheeyana in faraha uga qaadno ama nimankaasi hadegaan ama haduuladaan ama hadumiyaan faraha uga qaado masaasa leeyahay barnaamij su'aasha jawaabtaan u baahanahay waxa weeye وشريعة فرت المجال وصدق لبل الجوا صدق يا فرت روح رصنت هاي أيها قرشها أيها بلانك أيها بوك أو ذيك جراد شام عند كوش ذا كو قرن هذيكم محاق كو قرن بتشتا دجان أما مجاله حبرت على قرش سنة يجوبته ميجرت الدجان أي ما حبرت على عند كو هايصو وعيد الليل هاي شوجات ميجر الدجان أي حبرت على ورطي واي ماتو يومك صوت واحد markii dagaaladu ay ka dhacayeen laascaanood ee buuhood cidlada ahayd ee yeeli cidlada ahaa ee boodacad cidlada ahaa ee deegaanada cidlada ahaayeen dhammaan si nabad ah dadka xoolo daaqay ku wada daaqay dagaalkuna wuxuu dhaxeeyay dawlad iyo gobol dadkii joogay ee wax wada lahaan jiray dawladii oo nidaamkeeda ay ka kooban tahay dhammaantii Soomaaliya wada lahayd xataa reer Sool xubno way ka yihiin markii dagaalkaas u dhamaaday dadka reer Burco iyo dadka Soomaaliland iyo dadka Isaaq iyo dadka beesha ka dagaal ku jirta u badan waxay taageersanayeen ciidanka qaranka soo baxay laascaanood reer laascaanood hab nabad lagu xaalo habar jecel dagaal may weerarin habar jecel buuhood la may gelin habar jecel meeyag la may qabsan habar jecel yeelo may qabsan habar jecel waxa weey deegaanada dhulbahantada taaka kamid ah kuma jirto maanta diyaar uma aha inay ku durugto maanta diyaar uma aha inay qabsato uma aha diyaar inay xalaashato dhiigga dadka muslimiinta ee deegaanada ku nool waa ka xaraan aniga oo Cabdiraxmaan baa ka mas'uul oo taa in la hidka meel ku qorto haddaba waxa la weydiinaya oo aan weydiinay nimankaas oo doonaya washan iyo 40 magaalo saddex baa laba lagu 43 magaalo inoo harsan maxaa kaga arriminaysan maxaa kaga arriminaysan nabad baanu haynaa leeyina ma haysan nabad bay hayaan leeyina ma hayaan waxa weeye nabad wax la yiraahdo oo deegaanka taalo oo nimanka huwantaa ay gacanta ku hayaan ma jirto taalidigada waxay niyadooda iyo qalbigooda ku jira cufi colaad iyo cufi fogaaday iyo aas beel gaar ah dad badan oo wanaagsan badan ka soo jeeda dad badan oo wanaagsan way jiraan laakiin inta maanta wax hogaaminaysa ayaa sidaas ah in badan oo kamid ah waliba qayb baa diiday walaalahayga muslimiinta ah walaalahayga سبيشة معي ولا لا يقطع أنا غير شيء إنتها تلمبه واحد ويدينا سؤاشة وصدق هي فرت المجال أيام قشيسين لجوبئ محاو هيسان ولا غير مارمي كرا إذا ما يمارس المجال أو ما يلعلس المجال يكعيدك بعض عن خصوصا هو قشاو هيسان المقال هذا الشرق ريو وبرضه بقر كا إلهي بقره إذا عسبان محمود بورمدو يعرس عليه حاج حسن يأتي اللي فكر كأه waxa weeye la fikirka ah baa la gaarsiyo marka anu sidaan u hadlayo anu waxaan ahay nin taageersan fikirka mucaaradka ah anu waxaan ahay nin ka soo horjeeday fikirkii xukuumiga ah qaabkii uu talinayay laakiin waxaan ahay nin ka hadlayay fikirka deegaanka uu ka soo jeedo dadka aan la hadlayna waa dadka deegaanka ku abtirsada qaarkoodna waa kuwa deegaanka ehelka ah ilaa deegaankii abtiyeysirkeena leeyihiin anigu marka fikriyan ma aaminsan in colaad lagu qaado deegaanadaas laakiin waxaan aaminsanahay in la isdifaaco oo ciidamada madaniga la dhisto oo wixii soo doonta baadilka laga dhaco la iska ciliyo aniga taa aaminsan anigu
adigu waad iga fikir duwan tahay maxaad ku difaacaysaa deegaanadaas ma soo guuradaad leedahay ma ka soo qaxabaad leedahay ma ha difaacanina baad leedahay ma ka soo baxaad leedahay boqor ha qaadaninaad leedahay ma ciidanka kala dilaad leedahay markaad leedahay nabad aynu qaadano nabad ayay ku xidhanta markaad leedahay nabad aynu qaadano nabad ayay gacanteeda ku jirtaa markaad leedahay nabad aynu qaadano yaad xukuntaa labada nina dagaalamaya ninka la soo weerariyo ninka difaaca keebaad xukuntaa difaaca kula degaana maxaad ka qaban kartaa ka weerarka maxaad ka qaban kartaa ka weerarka ah ee mididiisa sita maxaad ka bedeli kartaa aniga waxa ay muuqataa in dadkaas ay muusa nacayb waxaas oo dhan u sameynayaan nacayb muusa un baa u muuqda sidoo kale nacaybka muusa ayuu baa la fogaaday halkana muuse ma joogo ciidankan muuse ma laha idinkaa iskale waa dadkiinnii waa hooyooyinkiin waa ubadkiinnii waa awriyihiinnii dhammaan duulaan baa lagu yahay dabkaa lagu shubayaa waa la gubayaa waa la laynayaa maxaa kaaga qorshaysan adiga maxaa kaaga qorshaysan su-aasha barnaamijkeena maanta dhextaalka u ah waa su-aasha dadka fikirkaa qabaan weydiinayo halkaas ka dhig muuse bixi halkaas ka dhig xukuumaddiisa halkaas ka dhig wixii khaldamay ee baastiga ahaa presidentiga iyo waxa jooga ka hadal maanta naw maxaa taagan maanta maxaa taagan aad kaga jawaabi kartaa saaxiibayaal muuqaalkeenu inahaas u daaran yahay muuqaalkana sheergaray oo gurbada gaarsiiya haddii ay nala joogaan kuwa daawanay naga midka yihiin fadlan fikirkiina baan fikirkaasaan idin weydiiyey sida ay u waajahaysaan halka hoose noogu reeb ceebna ha warkii saaxiib waa mar kale iyo warbaahinteena ay tilaadu leeyahay saaxiib haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe iyo page-kana follow haddaad hore noo joogteen muuqaalka sii sheergaray isma dhaafno dhammaanteen waa isjecel lahay waananu kala fikir duwanaan karnaa isku fikirna waynu noqon karnaa tani waa fikradeyni adiga taad waa maxay salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu